bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa markhaati t v kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka qodobada daawadayaal barnaamijka aynu ku eegi doonna haddii allaha awood leh uu raalli ka noqdo waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey dagaalada culus ee ka soconaya gudaha waddanka ethoobiya ciidamada suudaan iyo maleeshiyaan ethoobiyan ah oo ku dagaalamaya xadka ay wadaagaan labadaasi dal maraykanka oo baaraya eedeymo sheegaya in dowladda qatar ay maalgelin siiso ilaalada kacanka iiraan iyo askar ka tirsan ciidamada waddanka turkiga oo lagu dilay gudaha waddanka syriya mar kale daawadayaal soo dhowaada waa hagaag aynu ku bilowno dagaal u dhexeeya ciidamada waddanka suudaan iyo maleeshiyaad ethoobiyaana kana soo jeeda amxaarada ayaa lagu soo waramayaa in uu ka soconayo maanta xadka ay wadaagaan labada dal ee ethoobiya iyo suudaan wararka ayaa tilmaamaya in weerarka dagaalkan ay lahaayeen ciidamada waddanka suudaan kadib markii maleeshiyaadka amxaarada ay shalay iyo maalintii ka horreysayba ay weeraro gaadmo ah kusoo qaadeen gudaha xadka suudaan gaar ahaan gobolka loo yaqaano fashaqa halkaas oo la tilmaamay in ay caruur ka abduubteen sidoo kalena ay dileen dad rayida ciidamada waddanka suudaan oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa ka daba baxay ciidamadii amxaarada waxaana la tilmaamay in halkaasi iska horimaad uu ka soconayo iyadoo aan la ogeen dagaalka dhinacyadan dhex maraya khasaaraha ka dhashay sarkaal ka tirsan dowladda suudaan gaar ahaan ciidamada ilaalada xuduudaha waxa uu sheegay in lasoo gardaraystay oo dhulkooda lagu soo xadgudbay islamarkaana dad nool ay ka maqan yihiin ayna qasab tahay in ay dadkaasi soo furtaan xitaa haddii ay dhacdo in ay gudaha waddanka ethoobiya sii galaan ay uga dabageli doonaan maleeshiyaadkan ayaa dadka ay qafaasheen ee caruurta iyo dadka kaleba ah beeraley waxaana la tilmaamay in ay weerar gaadmo ah soo qaadeen maleeshiyaadka amxaarada ayaa ka faa'iidaysanaya xiisadaha ka jira waddankooda iyo sidoo kale in ay fursad u helaan meele ay kasoo dusi karaan oo dhanka xadka ah halkaas oo dhibaatooyin ay u geysanayaan dadka beeraleyda ah ee ku nool waddanka suudaan maleeshiyaadkan ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay dagaallo culus la galeen ciidamada suudaan walow dhankooda un khasaare ay soo gaartay waa kuwa amxaarade iyadoo haddana dagaalkan aanu jirin ilaa hadda faahfaahino kale oo laga helayo oo ku aadan dhanka khasaaraha ka dhashay hase ahaatee daawadayaal wixii kusoo kordho dagaaladan wararka iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodda leh uu raali ka noqdo markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyey dagaalka ka soconaya gudaha waddanka ethoobiya ciidamada dowladda federaalka ethoobiya ee garabsanaya kuwa dowlad deegaanada iyo ciidanka tigreega oo dhinaca ayaa dagaallo culus weli waxa ay ku dhex marayaan deegaano ka tirsan gobolada canfarta iyo amxaarada iyada oo lagu soo waramayo gelinkii hore ee maanta in TPLF ay qaadeen weeraro aad u xoogan oo ay ku doonayeen in ay ku qabsadaan aagag hor leh sidoo kalena dagaalka waxaa ka qaybgalaya diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ethiopia iyada oo xaaladdu ay u muuqato mid aad uga sii daraysa oo aan kala joogsi lahayn dagaalada waxaana dhinacyada ay sidoo kale yihiin kuwo isku hub urursanaya sidoo kalena isku ciidamo diyaarsanaya inkastoo dagaalada hadda socda iyagu lagu sheegayo oo keliya in ay yihiin kuwo bilow ah ayaa waxaa la filan karaa inay dhacaan dagaallo aad u qaraar maadaama weli dagaalka aanay si rasmi ah u gelin ciidanka dowladda federaalka ah iyo sidoo kale kuwii laga wada keenay dowlad deegaanada marka laga reebo askar yar oo dagaalka kala hortegaya ciidanka TPLF dowladda federaalka ayaa ilaa hadda waxa ay bixinaysaa digniino adag oo ay u jeedinayso TPLF oo ay ku sheegayso inay dagaalada joojiyaan dibna ugu laabtaan meelahooda islamarkaana aqbalaan xabad joojinta iyada oo TPLF-na ay doonayso in ay qabsato aagag horleh waxaana markan ay ku dhowdahay wadadii muhiimka ahayd ee isku xiraysay Jabuuti iyo Addis Ababa haddii wadadaasi ay gacanta ku dhigaanna waxa ay ka dhigan tahay in dagaalka aanan gacmaha aysan dib u laaban doonin dowladda federaalka ah sababtu waxa ay tahay wadadaasi waxa ay muhiim u tahay dowladda Ethiopia haddii laga qabsadana waxa dhici kartaba in ay meesha ku awood bataan TPLF dhinaca kalena wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo militariga Ethiopia ay ka socdaan magaalada Gondar iyadoo dhinaca kalena magaaladaasi ay ku soo bandhigayaan dhoolatusyo ciidanka maamulka amxaarada kuwaas oo sheegaya in ay difaacan doonaan magaaladaasi arrimaha la yaab kale waxa ay tahay magaalo duulaan lagu soo yahay oo weerar uu ku soo socdo oo meelihii u dhowaa un la qabsaday in ciidamadu ay sheegaan inay magaaladaas ka dhex dagaalamayaan oo ay difaacayaan beddelkii ciidankan tirada badan ee lagu soo bandhigayo gudaha magaaladaasi la geyn lahaa magaalada bannaankeeda si magaalada bannaanka looga difaaco dhanka kale haddii aynu eegnana waxaa soconaya xadgudubyada ay ciidamada canfarta ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed iyada oo deegaanka Soomaalidana ay dhibaato xoogan ay ka geysanayaan gaar ahaan galbeedka gobolka City
halkaas oo lagu soo waramayo in weerar kale ay soo qaadeen saaka waaberigii, halkaas oo caruur ay ku dileen iyo dad kale oo aan waxba galabsan islamarkaana ka ah xoolo dhaqata iyo beeraley. maamulka uu hogaamiye Mustafa Cagjar ilaa iyo hadda wax wara kama hayo oo kama aanu hadal arrintan. taas beddelkeedna waxa uu sameeyey maamulkan ciidankii difaaci lahaa caruurtan in la geeyo gobolka Amxaarada si ay u difaacaan caruurta Amxaarada, iyada oo ciidamada canfartana ay ka faa'iideysanayaan gaabkaasi jira oo ciidamada qaarkood loo daadgureeyay dagaalada ka soconaya gobolka Amxaarada iyo sidoo kale gobolka Tigreega. haddaba daawadayaal, xaaladaha guud ee wadanka Ethiopia wixii kusoo kordha wararkii iyo barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. weli barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan. goordhow waxay noo soo socda askar Turki ah oo lagu dilay gudaha wadanka Syria. hase ahaatee bal aynu eegno. Mareykanka ayaa sheegaya in uu baarayo eedeemo ku saabsan in dowladda Qatar ay taageerto ciidanka ilaalada kacaanka Iran. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in ay baarayaan wararka ku aadan in dowladda Qatar ay taageero maadi ah siiyaan ciidanka gaarka ah ee ilaalada kacaanka Iran. arrintaasi ayaa timid kadib markii madaxweynaha xilka kasii degaya ee Israa'iil uu xogtaasi la wadaagay dhigiisa Mareykanka oo ay dhowaan ku kulmeen magaalada Washington. wargeyska Time of Israel ayaa arrintan wax ka qoray. dhinaca kalena dowladda Qatar weli kama aanay hadlin tuhunka la xiriira inay maalgelin maadi ah siiyaan ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran. ugu dambeyntiina, haddii aynu eegno, wasaaradda difaaca Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in 2 ka mid ah askartooda la dilay, 2 kalena laguna dhaawacay weerar lagu qaaday gaarigooda gaashaaman oo marayay waqooyiga Suuriya. wasaaradda ayaa ku dhawaaqday in ciidamada Turkiga ay markiiba bilaabeen weeraro aargudasho ah, waxayna ku sheegtay bayaan ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Twitterka, iyada oo tiri: weeraradeena iyo howlgalladeena waa ay socdaan, waana ay sii socon doonaan, waxaana ay ku wajahan yihiin goobaha argagixisada. wasaaraddu ma aysan caddeyn halka uu weerarka ka dhacay, laakiin warbaahinta ayaa sheegaya in uu ka dhacay aagga Albaab. bayaanka ayaa lagu xaqiijiyey in goobaha argagixisada la aqoonsaday oo si wax ku ool ah loo duqeeyay islamarkiiba weerarka kadib. mana yeelayno, mana ogolaanayno in dhiigga shuhadadeena uu noqdo mid aanu micno lahayn, ayaa lagu raaciyay bayaanka. waxaa xusid mudan in ciidamada Turkiga ay howlgalladan aadka u xoogan ay bilaabeen 24 Agost sanadkii 2016. ciidamada Turkiga ayaa sheegay in howlgalladii ay sameeyeen ilaa sanadkaasi lagu sifeeyey dhul dhan 2,550 kilomitir, lagana sifeeyey kooxaha argagixisada kuna yaala waqooyiga wadanka Suuriya. baaxadda howlgalka waxaa ka mid ah goobo ku yaala baadiyaha waqooyiga ee gobolka Xalab oo ay ku jiraan magaalooyinka Jarablus, Albaab iyo sidoo kale Azaz. guud ahaan daawadayaal, barnaamijkeeni falanqaynta xogta caalamka idinkaga imaanaya Markhaati TV waa naga intaas. fadlan daawada haddaad channelka ku cusub tahay, subscribe saaro, sidoo kale furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaheena ugu horeeya ee la socda xogaha iyo wararka aanu baahino. barnaamijka mid lamid intaanu ku kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.